marka koowaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo agaasimaha guud hay'adda jinsiyadda iyo mas'uuliyiinta kala socda hay'adda jinsiyadda wada shaqaynta dhow ee aan ka yeelanay arrintan iyo dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay shirkan ee ka socda hay'adaha kala duwan ee diyaaradaha. Arrintani waxay runtii daba socotaa wada shaqayn aan rabno inaan xoojino labada hay'adood ka dhaxeeyay. Arrintaasoo sida hadda arkayseen uu nadaamin doono isafgaradkii shaqo labadayada hay'adood aan wada saxeexanay. Isafgaradkaas runtii waa laba shaqo oo laba mandate oo hay'aduhu ay kala lahaayeen laakiin isku dabran oo isku xiriira. Muhiimaduna waxa weeyaan in la tayeeyo oo la xoojiyo adeegyada hay'adda jinsiyaddu ay bixiso oo uu ka mid yahay baasaboorku, oo uu ka mid yahay isu socodka waddanka in meel kasta oo laga gelayo, haddii gudaha laga soconayo, haddii laga baxayo, hay'adda jinsiyadda ayaa maamusha. Shaqooyinkaas ayaan anagu kaabis u nahay, laakiin hay'addu mandateskeedii kale ma aanan qaadan. Arrintaasi marka waxay ahayd hay'adaha dowladda oo dhan baa iskaabaya. Isafgaradkan wuxuu xoojinayaa in laga wada shaqeeyo in dadka Soomaaliyeed ay ku helaan aqoonsiga qaranka, inay ku helaan baasaboorkii, isla markaana inay ku helaan isu socodkii waddanka. Marka adeegyada si macnawiya keliya iskuma ana xiran, si system ahaanna waa la isugu xiray oo qofka Soomaaliga ah labadayada hay'adood haddii ay suurtagal tahay meeshaas oo aan ka shaqaynano oo xarun aan ku leenahay, qofku si fudud ayuu uga soo qaadanayaa aqoonsiga qaranka, ka bacdiina adeeg uga doonanayaa xarumaha kala duwan ee jinsiyaddu ay ku leedahay magaalooyinka kala duwan ama waddanka dibaddiisa. Haddii aanan markaa xarun ku lahaynna, systemka annagoo isticmaalana nidaamka dawliga ee systemka jinsiyadda ayaa qofku aqoonsigiisii uu ka helayaa xarumaha jinsiyaddu xarumaha ku leedahay meelahan annagu ka maqannahay. Marka waxaan rabaa inaad u ogaataan inaanan maaragtay wada shaqayn labada hay'adood keliya xafiisyada aysan ahayn, system ahaanna waan isugu xiranna. Taasi marka waxay meesha ka saaraysaa maaragtay in baasaboorkeena la question garayn jiray oo la dhihi jiray tayadiisu ma fiicna waayo dukumentiyada lagu qaata ma adka. Waxay meesha ka saaraysaa in la yiraahdo Soomaaliya waa la iskaga socdaayo qofku isagoo aan dukumenti wadan buu safraa, ayay meesha ka saari doontaa. Waxaynu noqon doonaa waddan dal leh aqoonsi midaysan leh, baasaboor tayaysan leh, baasaboorkeenana laga haybaysto oo wadamada adduunka ay aqoonsadaan, oo la cabiri karo standardkiisa iyo sida lagu qaadanayo. Waxaan rajaynayaa oo heshiiskan idinkana aynu ku yeernay, idinkalana tashanay in shaqada aan qabanayno aan dadka u sahlno. Si dadka loogu sahlo waxaan badinaa xarumihii laga heli karay. Si dadka loogu sahlo waxaan ka wada shaqaynay annaga iyo hay'adda socdaalka in meesha niira aan laga heli karin hay'adda socdaalka laga heli karo oo shaqadaas ay qaban karto. Waxaan sahlnay waqtiga lagu helayo oo dadka qaybtood way ka hadlaan oo waxay yiraahdaan niira ama qofkii baasaboor u baahan oo xanuunsan ama safar degdeg ku jira ama niira waaya, waxaan niri wax saacad ka yar ayaaba niira ku helaysaaba. waa sahlay dhinacaas waa sahlay oo waxaanu badinay maaragtay meel kasta xarunta aan ku leenahay miidiyahan la wadaagnay waxaan la wadaagnay iskaashigii baan badinay hay'adaha privatka sida aad ka warqabtaan bangiyadoo kale xarumaan dadkii u geeyay cid kasta oo halka fadhida maanta oo hay'ada agency-leyda kamidana oo na weydiisato tiraahda dad fara badan baa xaruntayda timaadee customer ay u adeegana waxaan in offer gareynaynaa inaan idin keeno kadadkii oo dadkana aad ku diiwaan gelisaan xarumihiin iyagoo maaragtay adeegii ay idinka soo doonteenna idinka heli kara waxyaalahaas oo dhan waxaan ujeedka aan ka leenahay waxa weeye dadka inaan la dhibin oo lagu dhibin adeeg waxaan rabaa inaan
u caddeeyo waxa laga yaabaa dadka qaybtood inay ay ka hadlaan ay yiraahdaan NIRA dawladdu arrintan dakhli bay ka raadinaysaa ama dhaqaale laga raadinaya maxaa waxaan loo adkeynayaa horta adeega NIRA waad ka warhaysaan waddanka oo dhan waa lacag la'aan taasna ma ku jiro adeeg maslaxad kale oo dhaqaale ay dawladdu ka raadinaysay waxaa ujeedka guud ee lagu tayeenayo adeegyada kala duwan oo baasaboorkeenu ka mid yahay uguna weyn yahay dukumeentiga ugu weyn oo dawlad bixisanayd oo ka mid yahay ayaa lagu tayeenayaa waxaan rajaynayaa inaan iyadana aan sii xoojino wada shaqaynta aan la leenahay maamul goboleedada oo aan wax badan kala shaqayno waxaan kala shaqaynaa hadeer dukumeentiyada lagu qaato inta badan ama gobolka Banaadir bay ka soo baxaan ama maamul goboleedka ayay ka soo baxaan aqoonsiga lagu qaato taana waxaan rabnaa xarumo fara badan oo aan maamul goboleedada ku leenahay waxaana siiyay degmooyinka kala duwan iyo maamul goboleedka taasna waxaan rabnaa inaan sii xoojino oo wada shaqayntaas aan si maaragtay si adkayno insha Allah hadii la haydmo